بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أخيارت شرفت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كاني تصالها نولشا سومالي كيبل كصودا وحان ما أنت كجهد لينا وصيات كي نبي عليه السلام أو دردارك النبي محمد عليه الصلاة والسلام حجة الوداع أيام ولي كجرنا دردارك سووا فربضنا كل جدنا وحكوسا ليسنا in ummadda muslimka la toosiyo maadaama ay la soo xajiyeen dadkii ugu badnaa marka kaliya ahayd ay dadkaasi nabiga oo xajin arkaan nabigu marka uu xajiyay ayaa waxa weeye waxay al-asl ay ka ahayd inay maartay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam inuu san barnaamijkaas haba yaraato uu san maartay dadku ay si fiican u qaataan ayaa asalka ahayd saadaradeed waxa weeye tawsiyadan ama dardaarankan wuxuu ku salaysan yahay dadka muslimiinta ah inaysan isdilin haday laakiin isdilaan laba ruux waxa weeye waxa asala in labada ruux qisaas ay dhaxmarto oo la isu qisaaso ayuu ku saabsan yahay barnaamijkaasi taban barnaamijkan wuxuu ka hadlayaa kulligii marka la isku daro dardaaranka nabigu ummadda in dib loo dhiso ayuu ka hadlayaa ummaddu uu ogyahay nabigu mustaqbal dheer inay leedahay isaga intii ilaahay u qadaray uu la noolaa 23 sano ayuu isku toosiyay quraankii iyo xadiiskiina uga tagay saadaradeed dardaarankiisana wuxuu ahaa 100,000 oo ruux oo dadkii ugu badnaa ee nabiga waligiiba uu arkay oo muslima oo meel walba uga yimid ayuu wuxuu siinayay hadalla gaagaaban oo fiir aan culays ku lahayn gaar ahaan dad badan dadka badankiisu reer Madiina ma ayna ahayn saadaradeed hadallada oo gaagaaban buu nabigu siinay kaleeyhi salaatu wasalaam marka midaan qolku nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam uu dil ka sheekeeyay wuxuu leeyahay al-amdu qawadun hadii uu ka wax loo dilo waa dil waa saas waaye hadii uu ka wax loo dilo wax kale ma laha waa dil ruuxi marka ruuxa la dhashay ama dhalay ama waaliduha ama waladuha haddii uu isagu ogolaado inuu cafiyo oo cafisku iska banaan yahay uu yiraahdo aniga ruuxaygii ninkana dilay ama gabadhana dishay waan iska cafiya hadduu yiraahdo ilaahay wuu ogol yahay oo waxa la rabaa magtay ruuxi oo raali ah inuu ruuxi cafiya la rabaa dibta markay meesha tahay waxa weeye markii dilku dhaco haddii uu ruuxu ogeyn ruuxan in loo qisaasi karo loo dili karo hadduusan ogeyn xataa haddii uu diya qaato raali ma noqonayo maxaa jira ruuxiisina waa la dilay lamana raali gelinin saadaradeed ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri walakum fil qisas hayaa noloshiina waxay ku jirtaa in dadka la isu qisaaso ayay ku jirtaa waa wax la yaab la waaye dil ayaa noloshii dil baa nolol keena waaye waxa weeye dil baa nololkan waxaa laga wadaa dadku markay og yihiin haday si ay u kas dadka u dilaan in iyagana la dili kara haday og yihiin dilku waa yaraanaya ta kale ruuxa dhaalimka oo dulmiga wax ku dila hadii marka kolku wax ku dilo la dilo isaga labadii qoys mid walba ruux waa ka baxayo xiqdi isuma qabayaan markaas hadii ay iscafiyaana xiqdi iyo nac isuma qabaan markaas laakiin hadii wax inta ka baxsan uu jiro oo ruux intuu ruux dilo uu ogyahay inaan la dili karin waxa weeye macna male marbu sugaya markaas sugana markale ayuu dilaya taas marka waa waxyaalaha keenaya argoosadkan joogsiga aan istaagaynin oo daa'imnay waxa keenaya bulshadeena iyo bulshooyin badan in lamida waa midaas nabigu marka mustaqbalkaas wuxuu ku dhisay xugun la yaqaano iyo diin la yaqaano oo ruuxu ogyahay hadduu gaf sameeyo in gafkaas lagu xisaabi karo oo quraanka iyo sunnadaba si toosa ugu soo arooray fuqahadeeni saxaabadu ay ugu horeeyeen ay si fiican u faahfaahiyeen ayuu nabigu inoo tilmaamayaa taban fiqiga diinta iyo ahadiisa laga qaadanaya asri walbana wixii soo kordha meeshaas la aadaya laakiin culimadii hore waxay tirina waa dugsanaynayo wehel bu inoo yahay in kamidana waxa weeye si fiican baan uga faa'iideysanaynaa cid kasta oo dadaal iyo ijtihaad samaysana way gafaysaa marka al-amdu qawad markuu leeyahay dil oo kasihi wuxuu mudan yahay in ruuxa loo dilo ayuu mudan yahay haddii la cafiyana waa cafiso
والأقبلايا يعني waxaa run ahaan markaad eegto quraanka طبعا aayaadka ugu dhaadheer ee ka sheekeeyay qisaasta إلهي وحوري وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن قصاص والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون مركا آياتنا سي waxay u sheegtay yaab leh ee ku soo dhamaanayso ilig baa loo ridi isha il baa loo ridi يعني xubin kasta adigu ruux bin aadam ku dhinta waxaad mudan tahay hadaan lagu cafinin in xubintaadii adiguna inta u geysatay in la ugu geysto ayaad mudan tahay maxay nafta bin aadamka waa siman yihiin nabigu kaleey salaatu wasalaam si fiican buu sheegayo markuu ka sheekaynayo walakum fil qisas hayatun ya ulal bab al alam tattaquna aayadaas oo fasiray markaas wuxuu yiri dhiiga muslimiintu wuu siman yahay buu dhahay wax la yaab la waaye dhiiga muslimiintu waa siman yahay oo ma jirto ruuxa kale ka fadli badan oo la leeyahay ana dilay oo la ima dili karo maya ma jiro المسلمون تتكافأ دماؤهم واسكمد ويسميهين sidaas marka walakum fil qisas hayatun loo yiri qawaaniinta caalamka in badan dawladaha waxay isku dayaan in la yiraahdo ruuxii wax dilayaan la dilino ruuxan inuu sii noolaado muhiima kii la dilana muhiim baa inuu sii noolaado kana waa muhiim saadaradeed ruuxii ruux dila in la dilu mudan yahay hadii la cafina in la iska cafiyo ayaa ya suuragala waa la cafin karaa laakiin qadiyada ku saabsan ruux intuu dadka iska dilo intuu rabo inuu dilo inuu haddana iska oo xaragoodo oo nolosha ku sii joogo haddaan la cafinin sax ma aha taban waxaan u soo taagnaa Sacuudiga mar aan joogay magaalada Riyaad ayaa maamo ayaa waxay lahayd hal ruux hal wiil bay lahayd wiilkaas kaliya ayay lahayd inta kale gabdhahan wiilkii baa dilay wiilkaas marka wuxuu ahaa wiil xoolo badan ninka dilay wuxuu ahaa nin xoolo badan dad waaweyn ku xidhan oo milyaneer ah maamadii waxa la maama wiilkaagii waxa laga siinayaa diyo iska cafi baa leeyahay maamadu waxay tiri aniga ma cafinaayo waa in la ii dilo daban muddo dheer baa la meermeeriyay aakhirkii waxay soo taagtay maya malaayiin dollar baa loo gaaray waxay tiri aniga malaayiin dollar ma u baahni ma rabo marka ugu dambeysay maxkamadii waxay tiri waa in loo dilo markii dilka lagu xukumay ayaa loo yid maamadii waxa la waakan dil baa lagu xukumay iska cafi xoolahaageena qaado ma rabay tiri haddana bil kale la meermeeriyay muddadii la dil lahaa ninkan baa la qabtay waxa la yiri muddadii baa la qabtay ee iska cafi baa la yiri markaas waxay tiri maya maalintii baa la soo gaaray maxaa jir waxa bareeshar gareynaya dad milyaneer oo xoolo badan iyo dad kale oo madax ku sii xidhan ayaa bareesharka ku haya maamada maalintii markii la gaaray baa maanta waa la joogaa maamo waxaan ka baryaynaa inaa iska cafido waxay tiri aniga ma cafinaaya tiri waxaan rabaa wiilkii dilay in loo dilaan rabaa bay tiri wax la yaab la waayo meeshii lagu dili lahaa baa la keenay dadkii oo dhan baa yimid waxaa la yiri waa kan ninkii safety u haystaa iska cafi ma cafinaaya tiri dadkii oo dhan la ilaaha illa allah maama ma iska cafisid waa la bariyay waa la tuugay waa ما waxay tiri aniga ilaa la ii dilo ma yeelay tiri wala suwata maamadii way diiday aakhirkii ninkii markuu soo dhaqaaqay seeftii la soo dhaqaaqay ayaa la yiri wakaata laabadii koobaad buu qaaday iska cafi baa la yiri markaas ay tiri maya tii labaad buu qaaday iska cafi baa la yiri markaas ay tiri maya tii saddexaad intuuna qaadin ayay tiri waan cafiyay bay tiri dadkii marka wax ooya wax miir beela wax mashxarada dadkii oo dhan ayay jawigi oo dhan ayay dadkii ka qastay maxaa jira seeftii markay ku dhici lahayd ayay tiri waan cafiyay wiilkii maamadii marka ayaa waxa laga qoray waxaan arkay maqaal dheer oo maamadii laga qoray article waxa la yiri maama waxaad ka warantaa wiilkaaga dilay see isku tihiin wiilkaygii isaga iga fiican bay tiro wiil buu ii noqday bay tiri gabadhaas marka maamada wiilka dhashay maamo wiil dhashay se u jeceshay waa ogtihiin laakiin markay hubsatay in loo dilaayo markay ogaatay xiqdigii oo dhan uu ka baxay xasadkii baa ka baxay nici baa ka baxay
dadkii oo dhan bay ka yaabsatay waxay tiri waan cafiye macnaheedu waxa weeye wiilkeedii buu noqday saa daraadeed bini aadamkani wuxuu u baahan yahay kaliya islaamku marka dilka kamuuna dhigin walakum fil qisaasi xayaatun fil qisaasi waxaa laga wadaa dilka in la dilo waxba ilaa ma aha in la dilo ruuxii wax dila ee waa la cafin karaaba si dhib yar sidaas hadda مثلا maamadaas oo kale ay samaysay ayaa loo cafin karaaba mayada mushkila ah saa daraadeed aayadaas run ahaan markii aad fiiriso dadka waxay tusisay bini aadamku inuu isku qiimo yahay ilaahay nafta bini aadamka marra hal dila buu leeyahay marra lama dili karo asbaab badan ayay leedahay in naf bini aadama quraanka waxa ku soo arooray hal ruux oo adiga aad inqaadisay ayaa bini aadamka oo dhan fakaana ma ahya naas jamiican yani hal naf inaad inqaadiso oo la dili lahaa ayaa dhammaan waxa kugu filan adiga inay nafta bini aadamkii oo dhan ado inqaadiyay la mid tahay haddii aad ruux dishana waxay la mid tahay dadkii oo dhan inay adigu dishay la mid tahay saa daraadeed bulshadeena Soomaalida oo dulmigu uu meeshan dhigay maanta oo nabadda la'aanta waxa keenaya ruuxii dhaalimka wax dilay baa reerkiisii baa ku hawooganaya ama waxa ku hawooganaya ruux lacag iyo baawar iyo hubla ku hawooganaya ama waxaaba la leeyahay looma ooyaan baaba la yiraahdaa inta la iska dilo aan ninna hub soo qaadanaynin طبعا waxa weeye wax la yiraahdo looma ooyaan ma jiro nin walba xanuunku uu hayaa ninkii maanta adu malay inuu tabar daran yahay uu waxba sameyn karin bari isoo ka xoog badan waad arki doontaa shaki ma laha haddii marka hal la istii arrinta ku soo dhamaato lama kala xoog badinayo naseexadayda oo ilaahay dartii ah waxay ku saabsan tahay dadka dilay dadkay dileen inay maanta u tagaan intayna dhimanin ay dhahaan cafiya Soomaalidu badan oo iska cafinayaan oo dad xiqdi badan maaha saa daraadeed waxaan ku soo ururinayaa walakum fil qisaasi xayaatun adduunyada markii cadaalad la sameeyo cadaaladaas nolosha abuurta markii dulmi la isugu heeliyana nin walba wuu dhimanayaa boqolaal kun oo ruux baan iska dilaa nolosheen oo dhan waxaan iska dilaa rag iyo dumarba markaas aanan haddana inaan wax sameynaba aynaan ogeyn oo dadka dilay ay dadka la mid yihiin saa daraadeed maalin aan maanta ahayn oo ruuxu وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إسو كلي ومسكينة oo reerihi laandheeraha aan ahayn oo kuufka badan aan ahayn oo malaayiintii aan wadanin ayaa ilaahay intuu isoo hortaago ayaa laga qisaasaya aad iyo aad baad u maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين رنهان وحان كجرنا وصاياتك نبيغا أيام كجرنا وصيادا طبعا وحاوي ووصيادي سيالات ayay tahay marka waxaan arkaynaa waxay ku saabsan tahay nabigu markuu xajka joogay wixii jaahiliye soo maray oo muddo dheer intay diintii nabi ibraahim iyo tabar gabtay ayaa waxa weeye moogtay dadku wax badan ayay soo qaseen asnaan bay caabudeen mashaakilo badan bay soo mareen taban jawiga sidaas ah ayaa la soo maray marka maadaama dadkani in badani ay yihiin markii ugu horeysay nabiga waa arkaan in badana diinta aysan aqoonin ayuu dardaarankiisu marka wuxuu mararka qaarkood saddex mar uu khudbeeyay nabiga oo Carafaad iyo Musdalifa iyo Minaba uu ku khudbeeyay khudabtiisa faraha badan marka nabiga kaleey salaatu salaam ayaa wuxuu meeshaas waxa lagu xabaalay wixii mushrikiintu ay sameyn jireen ee xumaa oo dhan baa lagu xabaalay wixii daban wanaaga laguma xabaalayo oo nabi wuxuu yiri bu'ithu li utammima makarim al akhlaqi buu waxa aniga la ii soo bixiyay wanaagii anbiyada ilaahay ay soo waday inaan wanaagaas kobciyo on koriyo oo qurxiyo oo si qurxiya la ii soo bixiyay wixii marka wanaagaha baaqi buu yahay laakiin waxa laga hadlayaa wixii xumaan ahaa ee nabiga kaleey salaatu wasalaam uu in kamida soo gaaray isagu ay in kamida ay ka horeysay ayuu dadka wuxuu sheegayaa dhammaanteed inaysan maanta kadib jiraynin ayuu u sheegay oo dagaal lagu qaadayo oo islaamkii xukunkiisiiba aasay oo baabi'iyay nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ka bilaabay dadka sida xoolaha la isugu gumaysan jiray oo ogtihiin maanta
waxa ugu badan ee la isticmaalo oo la iskaga adag yahay waa maal waaye maxaa jira dowladii baa kala xoog badiyey dadkii baa kala xoog badiyey ina gaaja loo dilayaa ina xoolaa dilaya saa daraadeed ribada waxa la yiraahdo oo quraanka si toos ah uga hadlay xadiisna uga hadashay iyo nabigu ka hadlay oo wuxuu yiri inna riba al-jahiliyyati mawduu'un buuri ribadii waqtigii jaahiliyadaha oo xoolahan intaan ku siine markii sana la gaaro boqolkiiba intaasaan ka qaadan oo kaasha isoo shaqo kugu darsanin oo dadka masaakiinta la dhici jiray oo dadka masaakiinta la istiqlaali jiray ayuu nabigu wuxuu yiri ribadaasi waa la baabi'iyay oo maanta kadib ma jiraysa buu dhahay ribada ugu horeysa oo suuqa laga saarayo oo la gudaynin oo xoolihii uu sugaayay ruuxa ribada bixiyay uusan maanta qaadan karinin wuxuu ka bilaabay adeerkii oo Abbas ibn Abdul Muttalib ayuu ka bilaabay oo wuxuu yiri wa awwal riban abdaw bihi riba ammi al-Abbas buu dhahay waa wax la yaab leh ninka xaakimka markuu qaraabadiisa iyo naftiisa xuquuqda cadaalada ka bilaabo dadka kale oo dhan way qaadanayaan markuu cadaalada ka bilaabo dadka kale oo dhan way qaadanayaan haddii laakiin intuu dadka kale isagu dulmiyo oo cadaalad dadka uga sheekeeyo ma nina kuma dhageysanayo wax micnood ku fadhidana ma laha saa daraadeed ayaa waxa weeye wuxuu yiri ribada ugu horeysa ee dhulka aan la sameeyno oo dadkii xoolaha laga sugaayay laga qaadayni waxa kamida ribadii adeerkay Abbas oo waqtigii jaahiliyada ahayd uu dadka intuu lacag siiyay uu ka sugaayay inuu riba ka qaata ayaa ugu horeysa wuri nabigu wuxuu xoog saaray marka talaabadii ugu horeysay ribada fidaysa in la istaajiyo inay dambiyaasha u waaweyn tahayna quraankaaba inoo sheegay inuu ilaahay la diriraayo wixii riba sameeya ee quraanka inoo sheegay saa daraadeed inuu adeerkii ka bilaabo ninna ma hugurayn doono nabigu adeerkiiba hadduu ka bilaabayo yaa hadli karaba ummadda marka dhaqaalaheeda wax qalada ku dhiso oo dulmi ah oo iyaduna ugu dambaysa dadku way isnici lacnadaasina way ku socon gaar ahaan inaga oo muslimohay muharram inaga tahay baa laga hadlayaa meeshan dadka kale kama hadlayno ummad muslima oo riba ku dhaqmaysa ilaahay ma barakaynayo سادراديد إلهي سبحانه وتعالى وحور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين بوري وحاوي ددك إلهي إساق أبوري جدك إيغا توسن قاد بوري أو وحاس كغتكتان ربا داس وحي ما أنت كجرا وحوري ماشا ساتكغتك إسان بوري وهداد إلهي روبي سنتين بوري بحاجة روحة أحكامتها توس كإيه وين توس أغهر يمادا إيمان كيسا خطر جلايا دقال بو إلهي اللي جلايا سادراديد بو إلهي وحوليه هاي فإن لم تفعلوا هداد ربدا اسكدين ويدان ودادك دي جيسا يحوليهيسا أد معانسانيسان وحولها سيدا غلط كأد وقادانيسان اسكدين ويدان وحاد أغاتان إلهي إنو إيا النبي جيسو inuu dagaal idinku soo qaadayo ogow xarb min Allah ayuu ilaahay ku ilaaniyay dadka xoolaha dadka sida qaladka ugu isticmaala ribada iyo wixii ka agdhow dhan isku dariiq bay wada marayaan laakiin waa laga tooba keeni karaa haddaad ka tooba keentaana waxaa la yidhi intii nibaad leedihiin buu dhahay moogiye wax kale oo zaa'ida ood qaadanaysaan ma jiro dadkii buu quraankiina u sheegay axaadiistii nabigana meeshiina wada sheegay marka sidaasa marka dulmi maal sida dulmi naf bini aadam iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa loo diiday ayaa xoolana in la iska dhaco si qalada la iskaga qaato oo xoolo aan shaqo sax la gelinin in lagu tijaaraysto waxyaalaha ummadaha burburiye bay kamid tahay walidaalika faadanu biharb min Allah wa rasuulihi ciyaar ma aha yaa ilaahay dagaal ku ilaaniyay iyo nabi Muhammad ruuxii dagaalkaas gala inuu khasaarayo oo noloshiisu burburayso waa la hubaa ilaahay sidoo kula diray isaga jirtaa ilaahay ciidamo badan buu leeyahay wama ya'lamu junuud rabbika illa hu ilaahay hadduu rabo abaar buu kugu sallidii daadad colkalu ku keeni jiru ku keeni waxyaalo aan madaxaga ku jirin oo dhan baa la keenay ciidamada ilaahay xad ma laha waa badan yihiin saa daraadeed adigu ha isdhihin ilaahay suu ila dagaalamayo ilaahay suu ku dagaalamayo isaga ayaa jira isaga ayaa og
nabigu marka jaahiliyadii uu sii wada wuxuu yidhi dhiiggii jaahiliyada lagu galay iyo dilkii la isdilayna mawduucatun dimaadaasna waa la aasay oo ma jiraysa maanta kadib. waxaa laga wadaa aargoosad inuusan soo noqonin, qalad baa isu dili jirteen, waad islaamteen, intaasa ku dhammaatay. waxaa la yaab leh nabigu mar labaad ayaa wuxuu yidhi wa ina awala damin abda'u bihi dama caamir ibnu rabiica ibnu xaarif. waa adeerkii baa dhalay, wax la yaab le waaye. marka yani in adeer waaye, adeerkii baa dhalay. wiilkii markaa reer cabdimutalib ahaa oo la dilay oo si qalada loo dilay, dhiiggiisiibuu ilqeeyey uu dhiiggaasi ma jira maanta laga bilaabo, dhiig lagama rabo, wixii dilay waa la soo islaamay, intaasay ku dhammaatay. waa mithaal kale ama waa tusaale kale oo caddaynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam sida uu u dabaqaayo diinta ilaahay ku soo dejiye, uu inoo tusaayo sida quruxdasan oo naftiisa uu qisaasta u ogolaaday calayhi salaatu wasalaam, oo naftiisa cadaaladda uu isaga ugu dabaqayo. hadda diinkii oo loo soo dhiibayo waa nebi maxamed, laakiin haddana inuu ina tuso uu yidhaha waxaan ka bilaabayaa waa xigmadiisa, waa xigmadda nabiga ilaahay uu siiyey calayhi salaatu wasalaam. nabigu markaa wuxuu ina tusinayaa sida quruxdasan ee laga rabo dadka mas-uuliyadda haya, dadka sharikaadka iyo muasasaadka waaweyn xukuma, dadka dowladda madaxda, waa sida laga rabo, waa sidaas. saa daraaddeed cadaaladu kana ii dhow iyo kana ii dheer ma kala lahaa. dadkii hore marka waxaa weeye waxa ku halaagsameen waa maxay? dadkii hore waxay ku halaagsameen eexda waaye, waa dulmiga fiiri aan loo aaba yeelaynin, oo kana ixaga hawsheedan ii soo dhac, mashruucan aniga isii, war mashruucan ummadda soo dhex dhigo ha u tartanto, scholarshipka minaxda timaada oo bannaanka lagu aadayo, deeqda waxbarashada dadka u sin. haddii loo tartamayo ha loo tartamo, baaca mushtariga mashaariicda ku timaada sharikaadku ha u tartameen, dhismaha injineeradu ha u tartameen. saa daraad waxaa la rabaa waxoo dhan wax furan inuu yahay, oo dowladda iyo dadka mas-uuliyiinta ah ee mas-uuliyadda haya inay ku dadaalaan daa'iman inay ku dadaalaan hawshooda inay si saxa inay u haystaan, oo dadka aysan dulmi gaar ah aysan iyagu la imaanin. marka loo yimaado run ahaan dadkii hore, inama ahlaka aladiina qablakum maxay ahaayeen? idaa saraqa fiihim daciif tarakuu. hadduu ruux maalan tuuga sameeyo oo laandheero oo hub badan iyo maalaho la taaban karin, lama taaban jirin. hadduu laakiin mid miskiina oo dadka markaas iska celin karin ama xoog uu ku tiirsan yahay uusan jirinna, markaasay xadka ku oogi jireen. waa reer bani israa'iil dadkii inaga horreeyey. nabigu taasuu ka didayaa marka. saa daraaddeed bu wuxuu ku dabaqay calayhi salaatu wasalaam uu yihi dimaa aljaahiliyati mawduuca, tolkii iyo qaraabadiisa iyo waxaas ayuu farta ka saaray. marka waa sidaas ayaa marka nabigu inoo tusay calayhi salaatu wasalaam. waxaa nabigu kale uu yidhi jaahiliyadu waxay ku faani jirta oo dhanna kulli iyadana meeshaas ayay ku dhammaatay. wax marka ka hadhaya ma jiro. taban waxaa ka hadhaya kale wixii fiicnaa sida kacbada oo kale, dadkii waraabin jiray, dadkii furaahayey, lagama qaadayo. hawshoodii bay haysanayaan leanna hawl wanaagsan ayay hayeen. nabigu calayhi salaatu wasalaam khudbadiisa markuu soo khatimayo meel walba wuxuu ku soo khatimayaa wa antum tus'aluuna canii buu ihi, berri waa la ilaahay wuu idin warsan doonaayo. nebi muxamed dadkuna waa idin warsan doonaan, ilaahayna ila wuu ogyahay, laakiin dadka idinka dambeeya waxay idin warsan doonaan waxaan sameeyey, famaa antum qaa'iluun, maxaad dhihi doontaan buu dhahay. marka saxaabadu radia allaahu canhum waxay leeyihiin waa ballaqta wa addayta wa nasaxta, yani waadna soo gaadhsiisay, waad gudatay hawshaadii, waad naseexaysay hawshaadii, waad qabsatay. markaasuu nabigu ilaahay markhaati gashanayaa oo wuxuu leeyahay fartaasu kolla kor qaaday, kolla dadka ayuu ku tilmaamay oo hoos ugu soo goday. markaasuu ilaahay buu markhaati gashanayaa. markaasuu mararka qaarkood 3 mar oo isku xigtu ilaahay oo markhaati ka ahaw inaan hawshaad ii dirtay aan gutay, ilaahow markhaati ka ahow buu ihi. saa daraaddeed waxaa la rabaa nabigu risaalada ina soo gaadhsiiyey, ruux walbuu la hadlayaayo maanta inagu calayhi salaatu wasalaam inagu inala hadlayaa. markuu leeyahay allaahumma fashhad, yani waxa markhaatigiisii oo 100,000 oo ruux ay maqlaayeen hadalkiisa, intii mina joogtay oo dhan way maqlaayeenoo ilaahay baa dhagaho intuu u furay bay dhammaantood dhegaysanayeen. kuwa guriga jooga iyo kuwa la joogana isku sibay u maqlaayeenoo
waxay ka mid tahay mucjizada nabiga ilaahay siiyey saasaa daraadeed uu ku celcelinayaa nabigu allaahumma fashhad taas ilaahay u markhaati gashanaya markaa ayaa inaga waxay inagu tahay culayska ugu weyn ayay inagu tahay sababta waxaa weeye ilaahayba wuxuu u sheegayaa inuu ina soo gaadhsiiyey risaaladiisii inagoo ku nool qarnigii 15aad hadda oo hijriga gallay ayuu maaragtay ilaahay markhaati gashanayaa markaasaan maanta isu sheegaynaa waa lana soo gaadhsiiyey marka ilaahayna waafajiyo intaas ayaan ku ekaysanaa maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh